Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamaya khiyaari meel kastaad ka joogtaan dunida daafeeda. Ugu horeyntii videoga subscribe dheh, siina share garee si qeyrka uga faa'iido. Saad ogtihiinba maanta halkan waxaan ku haysanaa timirtu saad ogtihiin waa sunno ka sugnaatay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. maadaama aan ku jirno bishii barakeysneed oo Ramadaan ayaa xadiis saxiixa oo waxaa jira dhahaya qofku waa inuu ku afuro timir, haddaad haysana biyo waa inaad ku bilowdid macnaha cuntadaada. Sida daraadeed sunno ka sugnaatay rasuulka weeye. Sidoo kale dadka asxaabta iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam waagaas dadka sidaan oo kale wax walba maysan u haysanin, marka sida daraadeed alle waxyaabaha uu ku irsaaqay oo uu nafaqada iyo fitamiinada u geliyay ayay timirtu ka mid ahay. mar waxaa jirtay guriga rasuulka sallallahu calayhi wasallam aan bilayaal dab laga shidi jirin. Sayida Caaisha ayaa la weydiiyay, waxaa la dhahay maxaa ku nooleydeen? Waxay tiri waxaan ku nooleen al aswadayn almaa watamar. waxaad halkaa ka ogaanaysaa ilaahay inuu u geliyay nafaqooyin iyo waxyaabo jirka u baahan yahay timirta, sababtoo ah timirtu waa sunno nooga sugnaatay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. maanta halkan waxaan ku haysanaa oo aan kaga hadlaynaa nafaqada iyo jirka waxa uu ka helayo timirta iyo caano haddii la isku daro ama la isku shiido ama aad isku dhigtid. sida daraadeed waxay ka caawinaysaa. saad ogtihiinba bishii Ramadaan aan ku jirnaa, dadba 24 saac sooma ama 20 saac ama 15 saac. jirka maanta dhan bini'aadanka wuxuu u baahan yahay fitamiino iyo waxyaabo badan oo iyo awood aad ku shaqaysatid oo xoog ku heshid maadaama aad sooman tahay. marka waxaas oo fitamiina maxaad ka helaysaa? waxaad ka helaysaa timirta iyo caanaha la isku shiido. sida daraadeed haddii aad ku afurtid koob timir iyo caano la isku shiiday ah, waxaad ka helaysaa waxyaabo aan la soo koobi karin, sababtoo ah timirtu iyo caanaha la isku shiido waxaa ku jira sukriyaadka loo yaqaano uxaadiga, taas oo qofka si dhaqsa u jirkaaga ayaa wuxuu u qaadanayaa waxyaabaha uu u baahan yahay oo xoojinaya murqahaaga, oo haddana siinaya dhiirigelinta maskaxda qofka bini'aadanka oo tarkiiska u siyaadinaya. sidoo kale timirta caanaha leh timirtu waxay ka kooban tahay canaasir muhiim ah oo nafaqo leh, sida waxaa ku jira potassium, baa ku jira magnesium, zinc baa ku jira. sidoo kale waxaa ku jira fitamiinka loo yaqaano eeda oo indhaha aragooda u fiican, iyo fitamiin D oo dadka dhan u baahan yahay. waxaa kaloo timirta ku jira mudadaad aksida iyo waxyaabo badan oo jirkeena uu u baahan yahay maadaama aan bil Ramadaan ku jirno oon soomanahay. timirta iyo caanaha la isku daro waxay leedahay qiimo aad u sareeya oo nafaqo leh ayay jirka u leedahay oon la soo koobi karin, sababtoo ah waxaa ku jira caanaha calcium ayaa ku jira. calciumka ilmaha waxaa loo siiyaa inuu dheereeyo oo jir lafihiisa xoog waxa ka dhigo oo xoojiyo. dadka waaweyn wuxuu ka ilaaliyaan caanaha waxa loo yaqaano hashaashatul cidaam, lafahooda isku dhex yaaca oo tamar dareeya. sidaa daraadeed caanaha iyo timirtu labadoodii caanaha waxaa ku jira calcium iyo fosfoor, timirtana waan soo sheegnay fitamiino badan baa ku jira, marka labadiiba isu kaalmaysanaya waa nafaqadaada isku dhow. sidoo kale wuxuu ka helayaa markii labadooda la isku daro jirka wixii ka dhinmay maantoo dhan uu qofka soomanaa. sidaa daraadeed timirta caanaha lagu daray qofka bini'aadanka aad ayay ugu fiican tahay marka uu sooman yahay, sababtoo ah waxaad dareemaysaa maanta dhan markaad soomantaho shalay kusoo afurtay oon ma dareemaysid inta aad sooman tahay. sidoo kale waxay kaa caawinaysaa timirta oo kuu sahlaysaa dheefshiidka ayay u fiican tahay. sidoo kale timirta waxaa ku jirta alyaaf qasaiya waxa loo yaqaan ama fiber waxaad u taqaanidba, taas oo laga helo timirta oo waxaa ku jirta alyaaf nafaqo sareysa u leh jirka bini'aadanka. sidoo kaleeto timirta waxay ka caawisaa qofka bini'aadanka oo u siyaadisaa, waxay ku siinaysaa nashaad iyo shaqo, waxay siisaa qudadal ifraasiya qanjiro waxaa jira oo soo saara dheecaan u baahan yahay caloosha u baahan tahay. sidaa daraadeed way xoojisaa oo waxay siisaa nashaad iyo xoog bay siisaa. waxayna ka ilaalinaysaa timirta markaad cuntid iyo caanaha waxay ka ilaaliyaan dadka xanuunada kaga soo wajahan xanuunada waxay ka ilaaliyaan oo qudadka ifraasiyaalka xanuuno kusoo aadana ayay ka ilaaliyaan. sidoo kale waxay ka takhalusaa oo ka dhameysaa dadka
garaasiinta iyo bakteeriyada caloosha uga jirta ayay u fiican tahay qofka. Sidoo kale timirta waxay leedahay waa cunto aad iyo aad u qani ugu ah alyaaf, sidaa daraadeed waxay u fiican tahay caafimaadka qofka bini'aadanka. Waxay ka ilaalisaa timirta qofka wadnaha ayay xanuuno badan ka ilaalisaa, kansarka oo kale dadka way ka difaacdaa timirta sababtoo ah waxaa ku jira waxa loo yaqaano potassium. Potassiumku wuxuu door weyn ka qaataa xifadka ilaalinta caafimaadka qalbiga wadnaha. Sidoo kale waxaa ku jira wax yar oo ah sodiumku kuma badna, sidaa daraadeed timirtu qalbiga wadnaha ayay u fiican tahay. Sidoo kale timirta waxay faa'iido aan lasoo koobi karin u leedahay oo waxaaba ka buuxa sokoryaalka loo yaqaan sokor dabiici ayaa ku jira oo jirkeena u baahan yahay sida sucrose iyo fructose iyo glucose, kuwaas oo door muhiim ah ayay waxay ka qaataan siyaadinta daaqada jismiga u baahan yahay, tamarta iyo awoodda iyo baawarka jirkaaga u baahan yahay. Timirtu waxay xoojisaa lafaha, saan soo sheegnayba waxaa ku jira hadaa timir iyo caano isku darsatay calcium iyo potassium, lafaha naxaas baa ku jira, magnesium baa laga helaa, sidaa daraadeed waxay ka ilaalisaa dadka inay ku dhacaan xanuunka hashaashatil cadaamka loo yaqaano. Sidoo kale timirta lama soo koobi waxay ilaalisaa u fiican tahay mustawaha sokorta dhiigga, heerarka sokorta dhiigga ayay ilaalisaa u fiican tahay sababtoo ah waxaa ka buuxa alyaaf oo nafaqo leh, saan soo sheegnayba. Sidaa daraadeed timirtu waxaa kaloo ku jira mudadad agsida, marka timirtu waxay ay caawisaa calaa dabti nisbati sokorta dhiigga ku jirta ayay ilaalisaa. Sokorta laga helo timirta mid wax dhimaysa maaha, waa mid wanaagsan oo jirka u fiican. Sidaa daraadeed timirtu waxay leedahay faa'iidooyin aan lasoo koobi karin. Waxay xoojisaa manaacada difaaca qofka bini'aadanka, sidaa daraadeed xanuuno badan oo qofka kusoo wajahan alle ayaa ka ilaalisaa sababtoo ah waxaa ku jirta nisba caaliya min mudadad agsida anti-agsida loo yaqaan. Sidoo kale waxay u fiican tahay gabdhaha markay foolanayaan. Allah subxaanahu wa ta'ala sayyidati Maryam markay fooshu qabatay alle wuxuu ku dhahay huzi ilayka bijid'in naqlin tusaqid calayka rutaban janiyya. Foosha markay qabatay timirta alle geedka ruux buu dhahay, timirta markay cuntay ilaahay fooshu u saqiray. Sidoo kale oo culimada oo taariikhda islaamka ka hadla ayaa arintaas ka hadlay, anagu cilmi uma lihin. Sidoo kale hormoon waxaa jira loo yaqaan relaxin oo gabadha u sahla wilaadada. Hormoonkaas oo muxuu sameeyaa isna wilaadada marka ay gabadha ku jirto fooshu ay hayso ayuu hormoonkaas caanada ayuu kor u qaadaa. Sidoo kale wuxuu sahlaa inay gabadhu dhaqso ay dhasho, marka sida daraadeed hormoonkaas ayay u fiican tahay timirta dadka cuna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay naga dhiga kuwa sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku dhaqma.